haddaad waxaan isku hayno ama wax kulliha wada hadalku in lagu intay doontaa qaatee sabirka badiyo wada hadalka wax ku dhamaysano madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa markii ugu horeysay xisbiyada mucaaradka ugu baaqay in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka u dhaxeeya iyaga xukuumadda intuu doono ha qaatee waxaanu sidoo kale ka hadlay mudaharaadkii xisbiyada mucaaradku dhigeen waxaan leeyahay walaalahay xisbiyada mucaaradka warbaasha waxa la yiraahdaa aqalka aad ku soo socoto ee rabtayda degto de waxa wanaagsan inaad ilaashato haddaad aqalkiiba daaqada ka sii jajabiso oo albaabada ka sii jajabiso de maxaad ku soo gaadhay aqalkiiba waqtiga la qadaro ba soo gaari doontiin insha Allah anaga iyo Muuse waa iska tageynaaye oo de waqtigayba waa iska gabagabaya waxa la walaalahay mucaaradkaana warbashay shaydaanka iska naaro عرض مارتيه ذيك واحد مالي عرض إنه يوقف لك خبيستي واحد مالي فرق تورتين بنادم كود يرعى عرضه وجا واحد داره كود فنو قف هرجوجا كود فنو كوب كوريا كود فنو أنت هسه كنا ما تمكها وأنا ولا عليه ما واحد مالي أنت هسه يكون فلان فرق تورتين بل حاجة وصل نقطة نبض وصل نقطة ترى كيو هذان waxaan hadaad maartay anagu xukuumad ahaan hadaad waxaan isku hayno ama wax kulliha wada hadalku in lagu intay doontaa qaatee sabirka badiyo wada hadalka wax ku dhamaysano Xamse Xayd wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa